Sirta guusha. Waxaan maanta ka hadli doonaa sirta guusha. Inta badan dadka wax ka qora arrimaha guusha waxay sirta guusha ay ku sheegaan waxyaabo dhowr ah, laakiin aniga waxaan doonayaa inaan ku soo koobo 6 qodob oo aan aaminsanahay inay noqon karaan sirta guusha dhabta ah. Lambar 1. Salaada oo lagu dadaalo. Markaan ku leeyahay salaadaha ku dadaal ulama jeedo kaliya salaadaha waajibka ah. Qofku marka uu xafido salaadaha waajibka ah waxaa looga baahan yahay inuu la yimaado salaado sunno ah ee Alle ugu dhowaanayo. Alla meelo badan ayuu Qur'aanka kaga warramay salaada, waxaana suuratul Baqara ku yidhi kaalmaysta sabarka iyo salaada. Halkaas waxaad ka dareemi kartaa inay salaadu tahay qayb weyn oo qofku guul ku hanan karo. Markastoo aad waajib gudato, ku dar sunno joogto ah. Inta badan dadka la yimaada taqwada, gaar ahaan salaadaha weliba si sax ah, Alle waxa uu waafajiyaa hawsha dhinaca wanaagsan ee guusha keenta. Haddaba isku day inaad salaadaha ku dadaasho, waajib iyo sunnaba. Qodobka 2. La imow niyad saafi ah. Bulshadeena Soomaaliyeed marka aad la sheekaysato, mid kasta wuxuu jecel yahay inuu guuleystaha dunida noqdo, haddana ma laha niyad dhab ah. Kaliya waxa ay ku soo koobaan hadal aan ficil lahayn. Niyad saafi ah waa in qofku ay ka go'an tahay inuu xaqiijiyo shayga uu rabo, laakiin ma aha inuu ku dhawaaqo oo kaliya. Niyadda saafiga ah qofka way gaarsiisaa guusha haddii uu la yimaado ficil ku hagi kara waxa uu doonayo inuu xaqiijiyo. Haddii aad la timaado niyad dhab ah iyo ficil sax ah, ma jiro qof kaa celin kara guusha, amaba si aanad u guuleysan karin. Qodobka 3. Go'aan adag gaar. Go'aanka adag waa mid qofka guul u horseedi kara. Qofku marka uu leeyahay casiimad adag ama go'aan adag ayuu guul ka keeni karaa waxa uu rabo inuu ku guuleysto. Taa ayaa looga baahan yahay marka aad dooneyso inaad shay ku guuleysato. Waxaa dhici karta in dad ay ku yimaadaan kadibna ay ku niyad jabiyaan. Haddii aadan go'aan adag lahayn, si fudud ayaad u niyad jabaysaa. Haddaba isku day inaad go'aankaaga hagaajiso oo aad adkayso. Maxaa yeelay dadka reer Afrika waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad caajis badan oo ay ku adag tahay inay qaataan go'aan adag. Haddaba isku day inaad ka mid noqoto dadka Afrikaanka ah ee go'aamada adag qaata. Qodobka 4. La imow qorshe hagaagsan. Qorshe hagaagsan waa hab kuu sahli kara inaad si fudud uga gudubto dhammaan waxyaabaha hor istaagi kara hankaaga oo dhib gaarsiin kara. Dhammaan waxyaabaha aad dooneyso inaad ku guuleysato u yeel qorshe degan, si uu u noqdo hankaagu mid fiican oo sal fiican leh. Qofku marka uu qorshe la yimaado waa uu qaban karaa dhammaan mowqifyada guushiisa. Qodobka 5. Tala saarashada Alle. Tala saarashada Alle ayaa ah midka qofka noloshiisa saldhigga u ah. Qofku haddii uu Alle ku kalsoon yahay wuu gaari karaa heer fiican. Noloshaada waa inaad Alle u dhiibtaa kana filataa wanaag. Qof kasta oo Alle arrimihiisa u wakiisha ma khasaaro, waayo Alle waa mid ku filan oo u gargaari kara addoomihiisa dhammaan. Qodobka 6. La imow karti badan iyo firfircooni badan. Karti ama firfircoonida ayaa qayb weyn ka ah horumarka qofka bini'aadamka ahi uu gaaro. Qofku markasta uu shay qabanayo, haddii uu ku qabto hab firfircooni ku dheehan tahay, waxaa u sahlanaan kara inuu guuleysto. Waayo guushu maaha kaliya inaad ka fikirto wax cusub, laakiin waa inaad fikirkaaga si karti leh u fulisaa oo aad soo bandhigtaa. Sidaas darteed, waxaan kuu rajaynayaa inaad guul fiican gaarto saaxiib, insha Allah. Saaxiib, haddii aad dooneyso inaad ka mid noqoto dadka yar ee lagu magacaabo guuleystayaasha, fadlan ku dadaal salaad, la imow niyad saafi ah, go'aan adag gaar, qorshe hagaagsan la imow, Allah tala saaro, karti iyo firfircooni badanna la imow. Markaas waxaan rajaynayaa inaad guul gaari doonto insha Allah. Haddaba channelka subscribe saar channelka saaxiib si aad ula socoto casharada qiimaha badan ee ku soo gudbi doono insha Allah. Hana ka bixin adigoo subscribe saarin channelka Warshaga Media.